wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay waday tababaro kala duwan oo la siinayay shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee ku kala sugan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda Soomaaliland kaas oo ku saabsanaa barashada dastuurka iyo wadaniyadda ayaa maanta waxa ay tababar ku saabsanaa isla dastuurka iyo wadaniyadda oo fureen shaqaalaha ka howlgala xafiiska manaahijta iyo sidoo kale xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland kuwaas oo muddada uu tababarku u socdo lagu tababari doono wadaniyadda iyo dastuurka waxaana ugu horeyn halkaasi hadal laga jeediyay agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Cusmaan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland waxayna ka warrameen muhiimadda uu tababarkaasi leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in shaqaalahaasi ay uga faa'iideystaan muddada uu tababarku u socdo halkan waxaanu isugu nimi inaynu qabanno maanta ka wasaarad ahaan annagoo ka socono wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka tababarkii ku saabsanaa shaqaalaha dawladda marka xafiiska manaahijta oo agaasimo ka Maxamed Cali Cumar oo shaqaalihiisa fadhiyaan iyo xafiiskii imtixaanaadka oo Daawud Axmed Faarax oo isna shaqaalihiisa fadhiyaan ama shaqaalaha xafiiska ka shaqeynaya fadhiyaan labadiyo wada jira ayaynu maanta tababarkii ku qaadanaynaa ujeedkeenu nimnina wax kala ma aha waxa weeye waa maadaama dadku shaqo qaran haysaan oo aydan soo haleelaynin imaatinkii xarunta barashada wadaniyadda iyo dastuurka xarf ku taala in halkiin leedo ku imaado marka si fiican oo sharaf oo karaamalaad ugu mahadsantiin sida quruxda badan aad u soo ajiibteen maanta waxa weeyaan barashada dastuurka qofkii hore u bartayna waa muraajac buu noqonayaa kii kalena inuu wax ka ogaado waxa lagu xukumayo dalkaagu ku socdo inaad wax ka ogaato waxa weeyaan xuquuqda waxay ka mid tahay wax citizenka iyo ka mid tahay rights and responsibility maxaa xaq lagu leeyahay muxuu xaq leeyahay in qofku barto weeyay marka hadii xukmo shaqadeenu dee waa ogeeyaan shaqa xasaasiyan ku jira aroortii kalay waxa loo si wanaagsan waa in loo dhageystaa dhaqdhaqaaqana la yareeyaa hadii xukmo si wanaagsan loo kala faa'iideysto agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland Marwadiiqa Cabdi Yuusuf oo iyadoo tababarkaasi si rasmi ah u daafurtay ayaa kula dardaarantay shaqaalaha tababarka loo furay inay ka faa'iideystaan muddada uu tababarku u socdo sharaf iyo qiimo ay noo tahay ka wasaarad ahaan inaanu maanta halkan idinku soo booqano xafiiska laga arinsanayo waxa weeyaan manaahijtii qaranka iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka oo labaduba halbowlo waa qaranka markaanu qiimeynay guud ahaan wasaaradda waxbarashada oo guud ahaan ka tirsan tihiin markaanu eegnay culayska shaqo idin haysta iyo anagoo fulinayno fariintii madaxweynaha ahayd in shaqaalaha dawladda la tababaro darajada A iyo B la horeysiyo oo waliba gobolka Maroodijeex gaar ahaan xarunta Hargeysa falanqeyn dheer kadib agaasimaha guud iyo markaanu maamulkiina gaarka ah la soo hadalay waxa la isla gartay in aydan xafiisyadii ka maarmay waxa loogu talagalay shaqaalaha dawladda A iyo B la tababarayo 8 saacadood inay qaataan 2 maalmood oo min 4 saacadood taa lafteeda waa la idinka gaabinayaayo waxa keenaysa shaqada haysan in waqtiga la soo gaabiyo markaan rogrognay waxaan isla garanay in xafiisyadii la idinku yimaado wasaaradda waxbarashada horaan u tagnay waxaan shalay joognay wasaaradda ganacsiga oo iyada laftirkeedu halbowlo ka shaqeynaysa idinka maanta ku xiga waqtiga imika macalinku idin joogo waxaan magan idinka nahay duruusta la idin soo gudbinayo oo dastuurku ugu horeeyo wadaniyaduna ku jirto inaad sida u qaadataan muddada ay wasaaraddu idin la joogtana inaynu ka faa'iideysano maalinta qalinjabinta insha Allah kulli waxa la filayaa sidii qalinjabintii hore u dhacday in madaxda ugu sareysa dalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku insha Allah inay la soo qayb gali doonaan xafiiska manaahijta iyo xafiiska imtixaanaadka waan jecelahay maalinta inaan goobta ku arko kulli madaxdiina markaa idin soo maamuli doonto inta imanaysa iyo si uga qayb galayno laakiin deena laga arko waxbarashadii gudaha maalintaas shahaadooyinka la bixinay inay qayb idin kaga jirto oo inaad dastuurkii fahanay inuu garanay la garto waynu u baahanahay